maxkamadda guud ee dowladda deegaanka Soomaalida waxaa la aasaasay sanadii 1991 taariikheedka Itoobiya kadib markii dastuurka dowladda deegaanka Soomaalida dib loo habeeyay taasoo suuragelisay in la kala saaro saddexda hay'adood ee dowladda kala sharci dejinta, sharci fulinta iyo garsoorka kuwaasoo dib habeynta dastuurka ka hor iskugu jiray maxkamadda guudna midda ugu sarreysa hay'adaha garsoorka ee dowladda deegaanka Soomaalida taasoo xarunteedu yahay magaalada Jigjiga ee caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida waxayna u aasaasantay waxyaabahan ilaalinta xuquuqaha wadareed iyo kuwa shakhsi ahaaneed ee lagu damaanad qaaday dastuurka heer qaran iyo heer deegaan xalinta khilaafaadka dhex abuurma shakhsiyaad kala duwan iyo bixinta go'aan cadaaladeed oo ku saleysan sharciga xaqiijinta sareynta sharciga iyadoo ka qayb qaadanayaan horumarinta nidaamka haddaba waxaanu barnaamijkan ku soo bandhigaynaa shirweynihii iyo qiimeyntii waxqabadka maxkamadda guud ee dowladda deegaanka Soomaalida oo muddadii 4 cisho u dambeysay ka socday magaalada Jigjiga shirweynahan oo ka soo qayb galeen hay'adaha fulinta, hay'adda sharci dejinta, hay'adda garsoorka iyo waliba sidoo kale odayaal dhaqameedka iyo ujeedadiisu ay qabashada shirweynaha sanadlaha iyo qiimeynta waxqabadka maxkamadaha deegaanka shirweynahan ayaa mid lagu qiimeynayo warbixinta waxqabadka maxkamadaha iyo dhageysiga tabashooyinka dhanka garsoorka bulshada waxyaabihii qabsoomay iyo kuwan qabsoomin sababihii qabsoomin waayeen waxa sareynta sharciga sugan sidoo kale wadan ama qaran in duni ka dhiga walaalin markay feel garoobaan fulintu waxa wadanada badbaadsho waxa weeyaan laamahan markaas darteed waxa loo baahan yahay kaalinta ugu muhiimsan ujeedadeenu asaasanahay in wax laga qabto laga marmaan ka xukuumad ahaan kulleen isbeddelka ka bacdi waxyaabaha ugu muhiimsan ee deegaanka ka qabsoomay waa nidaamkii dowladnimo in meeshiisii lagu soo cesho taana waxay ku xidhan tahay laamaha kala duwan ee dowladeed sidii loo baahnaa sharciyadii lagu aasaasay mid kasta inuu xilliga waajibaadkiisii ka soo baxo fulinta waad arkaysaan deegaan ahaan kor ilaa hoos dib u habeyn baa lagu sameeyey day hogaamin tahay dib u habeynta maanta waxaa ka arkaysaa in natiijo ballaaran ay keeneen meel kaste waxaad arkaysaa horumarro bilowa adeeg hufan oo maaragtay la isku day in bulshada ay hesho sidoo kale baarlamaanka waad garanaysaan culaysyo badan ba hadda kahor ka jiri jiray xor ma ahayn marka iminka waxaa la isku dayay in ay xor ahaadaan in maaragtay deegaan ahaan wax alla wixii bulshadeenu u baahan tahay day tahay bayaano kala duwan iyo xirnaamo kala duwan ba sidii loo baahnaa in la soo saaro oo maaragtay baahida ka jirtana laga qabtiro bulshadeena garsoorku sidoo kale wad arkaysaan oo hadda ka hor maxaabiis loo kala qaybin jiray sanadada lagu xukumo wayna soo marto mar dhaweyd bay ahayd oo maaragtay de banaanka sidii aan meeshan riwaayadii lagu soo jeediyay aan ka arkaynay banaanka informal buska wax kasta marka taa in wax laga bedelo oo hanaankii dowladeed meeshiisa lagu soo cesho waa laga maarmaan haddii aan sidaas sameynay keliya ayaan gaari karnaa hiigsiga aan musleenahay bal deegaan ahaan horumar waara inay bulshadeenu hesho sidoo kale deganaan siyaasadeedna in ay bulshadeenu hesho marka dhowr arrimoodba waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee isbeddelka ka bacdi deegaankeena ka hana qaaday bay ka mid tahay dowladnimadii oo sii xoogeysatay amnigii oo maaragtay waxaan meelo xuduudaha ahayd inta badan deegaanka ugu nabadaysan weeye deegaankeenu waxaa kale oo inoo dheer siyaasiyan markii ugu horeysay weeye siyaasad degan dad aad maalin aad arkaynin oo group baa loo kala kacay hebel iyo hebel baa is haysta waa markii maaragtay ugu yareed waxyaabaha caynkaa inaan deegaankeena laga maqlo hadda ka hor annaga unbaa isleyn jirnay dad kalena waana loo adeegsan jiray waxaana loo adeegsanayay waa dadkeena unbay ahayd qaarna doorkay ku jiri jireen kuwa kalena waad garanaysaan qaabkii maaragtay
dad midaantay oo laba walaala ay isku tirishay taalaftigeegu meesha way ka baxday hadda wax duurka joogo oo Soomaali oo dana Soomaali aan u halgamayna way haatay ma jirto waa la soo afjaray waxyaabaha in dadkeenu si nabada haddii ay afkaar kala duwan jiraan laftigeedu in la tartigareeyo miiska la soo fadhiisto la wada xaajoodo nidaam maaragtay nooca inuu meesha ka jiro ayaa ka hirgelay marka arrimaha hadda ka hadlay si guud deegaan ahaan waxyaabaha inoo suurtoobay ayay ka mid tahay haddii aan ku soo laabno qiimeynta iyo shirweynaha maxkamadaha reformo kala duwan ayaa laga qabtay waddankan markii sidaa loo bilaabay isbeddelku u bilaabmay waxyaabaha weli la dhammaystirin ay dhaliila ka jiraan waxa weeye laamaha maaragtay cadaaladda culays badan baa ka jira garsoorka sidoo kale waxyaabo inta badan soo laalaamo sidii loo baahnaa loo dhammaystirin baa jira marka in la dhammaystiro waa laga maarmaan kulli in sidaa la isugu yimaado oo la qiimeeyo waxqabadka meelaha ay dhaliila ka jiraan la saxo meelaha ay waxyaabo lagu dayan karo ay ka jiraan sidoo kale lagu eegto oo khibrad wadaag xitaa haddii loo geyn karo qaabka wax la suga daydo waa laga maarmaan xukuumad ahaan reformyada ugu muhiimsan ee xoogga saarayna ee si wada dhow ama si wada jira aan uga wada shaqeynayay ka mid tahay kulleen dib u habeynta shaqaalaha iyo shaqada iswaafajinta waan wadnaa meel fiican bay noo socotaa maxkamadaha laftigeedu waxyaabaha inta badan in wax laga qabto u baahan ayay ka mid yihiin taasi guud deegaan ahaan waxyaabahan xoogga saarayna ka mid tahay inay noo socdaan waxyaabaha kale daliilaha soo laalaama in wax laga saxo waa laga maarmaan stiil musuq uu jiraa meelaha inta badan tuhku ka jiray ka mid tahay oo Soomaaliduna waa iska garanaysaan adeega dad dhaqan ahaan ka dhaadhacsan weeye oo si aan ku arkaynay riwaayada qofka haddii wax la siinin waxa ma heli karaysid inta badan dad badan oo sida ka dhaadhacsan baa jirta marka arrimaha inaan soo afjarno waa laga maarmaan oo nidaamka iyo qaabka aan u shaqeynayno casriyayno cadcadaan inay ku dhahantaa loo baahan yahay adeeg kasta oo siinayna bulshadeena waxyaabaha kale eexda sidoo kale way soo laalaabataa inaan wax ka qabanno waa laga maarmaan ergadu aad bay noogu badan tahay waxyaabaha in wax laga qabto waa laga maarmaan waxyaabaha ugu muhiimsan sidoo kale danaha dowladeed waa danaha shacabka waxaad arkaysaa dhul ama beer ha noqoto ama dhismo ha noqdo ama waxay doontaba ha noqdee oo maanta intuu mid subax iska soo kaco iskale beri horaan lahaan jiray oo maaragtay qaabkan iminka waxyaabihii dhaliilihii la sheegayay inta badan dadku ay soo adeegsanayaan marka in laga taxadaro waayo waxay gacanta dowladdu maanta ku hayso berri bulshada ballaaran ee maaragtay unbaa loogu faa'iideynaya oo bulshadaani in loo arko dowladdu in ay wax gaar ah intii ay leedahay loo arko ma faragelin tahay laakiin inta badan waxyaabaha soo laalaamay ka mid tahay danaha dowladda inta badanna in danaha dowladda maaragtay la xajiyo wax laga qabto ayaan xoogga saaraynaa oo u asaasana waxa kaloon idin rajaynayaa oo igula dardaarmayaa in la xoojiyo kulamada noocan sooyaalkii maxkamadaha haddii aynu eegno ma soo koobi karno laakiin dadka intiisa badan way og yihiin waxaa jooga mas-uuliyiintii hore usoo shaqaysay oo aan ka tilmaami karo hoggaankii nabadgelyada oo hadda dhexdeena fadhiya mudane xaamud finle iyo mas-uuliyiin kale sooyaalka garsoorku soo maray marxalado kala duwan ayay ahayd haddii la damco in laga sheekeeyo laga geeyoon maayo waqti bay u baahan tahay laakiin waxaynu ognahay inaynu meel aan waxba jirna ka soo bilownay aynu soo marray daaladhac fara badan waqti aynu soo marray haddana gebi ahaanba ay burbur gaadheen oo magacii garsoorku uu isu bedelay magac shaabad ah arrintaasi waxay raad ku yeelatay nidaamkeenni cadaaladeed waxay raad ku yeelatay ilaalintii xuquuqda aadamaha waxay raad ku yeelatay kuwii shaqada qabanayay laftoodii saameyn fara badan bay yeelatay isbeddelkii kadib
waxaa qorshe loo qaatay in nidaamka cadaaladda ee deegaanka dib u habeyn lagu sameeyo si loo helo nidaam cadaaladeed ay bulshada ku hirato xaqiijin kara xuquuqda aadamaha iyo sareynta sharciga run ahaantii waa arrin aan ka mahadnaqayno ka go'naanshaha iyo furfurnaanta siyaasadeed ee xukuumaddu ay hogaaminayso oo suurto geliyay in qorshahaas la qaato annagoo qorshaha ka duulayna ayaanu bilownay in isbeddelkii maxkamaduhu uu sal iyo baar noqdo waxaan culayska saaray inaan dib ugu noqonno garsoorka shaqeeya iyo tayadiisa waxaan dib ugu noqonnay garsoorka shaqeeya iyo iswaafaqsanaanta shaqada ay hayaan waxaan xallinay dhammaan dhibaatooyinkii la xiriiray cududdii garsoorkii aan haysanay iyo maxkamadihii aynu lahayn iyo aqoontii loo baahnaa inaan dib u habeen ku samayno aan iswaafajinno annagoo socodkaas ku jira oo muddadii isbeddelkuba deegaanku ka curtay ay hawshaas socotay waxaa heer dal laga bilaabay in dib u habeyntaa la sameeyo nasiib wanaag waxay noqotay innagu inaynu noqonno dad ka horreeyey oo bilaabay ka hor intaan dalka intiisa kale ka bilaabminba maanta isbeddelkaasi si guud ayuu waddanka uga socdaa waxaana si khaasa u hogaamiya baarlamaanada deegaankeena markay noqotona isbeddelkaas waxaa u xil saaran oo gacan naga siiya golaha xildhibaanada isbeddel kasta oo la rabo haddii aanu gacan lahayn oo aanu ka go'naansho siyaasadeed lahayn lama dhaqaajin karo xukuumadda waxaan uga mahadnaqaynaa garab istaagga joogtada ah dhiirigelinta joogtada ah iyo gacanta joogtada ee mar walba na garab taagan yihiin si aan u gaadhno himilada aan looga dan lahaa in ay hay-adda garsoor u gaadho hay-adda garsoorka oo ah hay-ad ka mid a saddexda hay-ad oo dowladda muhiimadda ay leedahay run ahaantii in badanna waa la ogyahay haddii wax laga taabtana garsoorku waa halbeega dowladnimada waa meesha laga cabiro sharcigu inuu shaqeeyo iyo in kale rule of law meesha aasaaska u ah ee cabirka u ahi waa hay-adda garsoorka sareynta sharciga meesha cabirka u ahi waa hay-adda garsoorka hay-addan garsoorka oo dastuurku aasaasay oo madax bannaan ka madax bannaan faragelin kasta noocay doontaba ha noqotee waxay damaanad u tahay xuquuqda bulshada gebi ahaanteed waa meesha qof kasta oo tirsanaya in xadgudub ku yimid ee noocu doonaba ha noqdee uu inuu yimaado loogu talagalay xuquuqdiisana lagu sugo taasna waxaa as-aas u ah in hay-addan la dhiso madax bannaanadeedii inay hesho inaan loo hoggaansamo go-aanada ee awaamirta ka soo baxaysa annagana waxaa na saaran markaa hay-ad garsoor ahaan inaan xaqiijinno in sharciga lagu shaqeeyo in wixii dheeraad ku ah ee nagu dhex jira gudaha iyaga aanu ka qabanno oo aanaan u ogolayn bulshada in ay caqabad ku noqdaan sidii riwaayadda hadda riwaayadsi ku jirtay oo kale ninka dan gaar ah u dhex jooga meeshu garsoor kale saameyn ku yeelan maayo ee wuxuu noqonayaa isagu inuu ka dhex baxo halkiisana mid habboon oo bulshada dan u ah in uu soo galo taa micnaheedu ma aha garsoorka in la dhibaateeyo garsoorka in la ilaaliyo weeye karaamadiisa inaan ilaalino magaciisa inaan ilaalino garsoorku noqday mid ku shaqeeya sharciga iyo damiirka oo dastuurku uu hagayo waan rajaynayaa isbeddelkan hadda socda oo runtii dhinac walba nala garab taagan yahay wixii taageer aan u baahnayn xukuumad ahaan iyo baarlamankiiba inuu noqon doono mid hana qaada oo gaadhi doono meel laynagu daydo waan hubaa inaynu halkaa gaadhayno hadda waxaynu ka mid nahay garsoorka markii la eego dalka meelaha lagu soo hirto ee tusaalaha loo soo qaato ee khibradda loo soo doonto golayaasha marka la isugu yimaadana aynu kaga jira kaalmaha hore runtii waa wax lagu faano sharaf inaa laakiin taasi micnaheedu maaha inaynu halkaa taagnane waa inaan isku dayno inaynu geedhno meel dhammaystiran arrintaasina waxay ku suurtagalaysaa furfuraanta iyo diyaargarowga iyo ka go-naanshaha xukuumaddu ay leedahay runtii waan aad uga mahadnaqayno had iyo jeer waanan gaadhaynaa insha allah sidaan rajaynayo waxaan isbeddelkan qayb ka mid ahayd in goobihii lagu shaqaynayey aan isbeddel ku samayno
waayo goobta lagu shaqeynayo waxay saameyn ku leedahay adeegga la bixinayo iyo kalsoonida lagu qabi karo annagoo adeegsanayna taageeradiina la siiyey maxkamadda guud aad ogeydeen inay muddo badan dayacnayd oo aanay helin wax taageero ah ama inay halkeedii soo gaadho maanta waxay ka mid tahay maxkamadaha ugu wanaagsan laakiin waa bilow waxay gaadhi doontaa meesha ugu wanaagsan gobollada guddoomiyaasha runtii aad baan uga mahadnaqnaa waa iska xil saareen iyagoo awoodda ay leeyihiin iyo ka goonaanshadoo ka duulaya nin waliba wuxuu isku dayay inuu dib u habeen ku sameeyo degmooyinkuna sidaas oo kale laakiin dadaalkaan wadnaa waxa weeye in aynu gaadhno dhammaan maxkamadaha in haddii ay noqoto goobaha ay ku shaqeynayaan iyo haddii ay noqoto tahsiilaad kaleba in ay gaadhaan meeshii loo baahnaa dadkuna ay cadaalad helaan aasaaska loo socdaa adeegayaal baan nahay adeegayaal nadiifa oo bulshadu ay ku nasato inay noqdaan ayaan rajeynayna haddii la yidhaahdo dhinaca cabashooyinka waxaan sameynay nidaam dadka cabashooyinka ay leeyihiin ay ugu soo gudbin karaan maxkamadaha waxaan xoojinay gobolladu inay kaalintoodii gutaan oo guddoomiye kasta oo gobol joogaa kaalinta sharcigu siiyey inuu ku shaqeeyo waxaan hirgeliyay guddiyadii gobolladu oo bayaan ku dhigay in sidoodii u shaqeeyaan hore aan u shaqeyn jirin arrintaasi waxay sahashay in cabashooyinka si dhib yar loo qabto tala bixino fara badan ay ka yimaadaan sixitaanku uu noo dhib yaraado maxkamadda guud annagu waxaan u samaynay qorshe ah in cabasho kastoo ay bulshadu qabto noocay doontaba ha noqotee ay noo soo gudbiyaan iyagoo toos u imanaya iyo iyagoo fariimo ku keenaya intaba waxaan uga dalnayna wax kale maa inaan ogaano goldolooyinka jira jawaab degdeg inaan ka bixino arrimahaasu way u furan yihiin bulshada leexleexad iyo qof la soo maro iyo saaxiib la adeegsado ama qaraabo la adeegsado arrimahaas inay meesha ka baxaan oo ay noqoto hay'adda garsoorku hay'ad lagu kalsoonaado wixii dhibaatay lagala kulmana si nadiif ah loogu soo gudbiyo cid ay khusayso jawaab sharci oo degdeg ah laga bixiyo waa nidaamkaan sameynay waxaan rajaynayaa arrintaas inay bulshada gaari doonto haddii ilaahay yidhaahdo inta meesha joogto ay ugu horeeyaan ee golaha guurtiduna waxaan rajaynayaa arrintaasi inay gacan naga siin doonaan haddii ilaahay yidhaahdo ugu dambeyn haddii qaybaha kala duwan ee bulshada iyo hay'adaha dawliga iyo dhammaanteen aan iskarabsanno qayb kasta oo ka mid ah adeeg bixinta hay'addan garsoorku ay samayso waxay noqon doontaa mid taaba gasha sidoo kale waxaa munaasabadda shirweynahan ka hadlay afhayeen ku-xigeenka dowladda deegaanka Soomaalida iyo Jamaal Dayib Garaad oo ka mid ah golaha nabadda midnimada deegaanka markii si guud la eegayay hay'adaha garsoorka dalkoo dhan 30 sano oo la soo dhaafay inaanan xoogga la saarin ama mudnaanta wala siinin hay'adaha cadaaladda ama hay'adaha garsoorka si guud ahaan baa la qiimeeyay waxaa dib u habeynta ama reformka loo qaatay in hay'adaha garsoorka iyaguna sidii hay'adaha kale labadii kale mudnaanta loo siiyay hay'adaha garsoorkana mudnaanta loo siiyo dalahaanba si guud la isla qaatay hay'adaha garsoorku ay kheyraadda miisaaniyadda ay ku yaryihiin loona dhammaystiro tashiilaad lama huraanka u ah bixinta adeega garsoorka oo cadaali ah haddana maadaama kheyraadka dhaqaale yar yahay waxaa loo baahan yahay inaad ku dadaashaan dhismaha hay'adaha garsoorka oo ku dhisan kalsoonida shacabka annagu waxaan matalnaa maadaama adeegto aan nahay intiina ama halkaan fadhidana adeegto aad tihiin in lagu dadaalo kalsoonida shacabka kalsooniduna waxay ku timaadaa shaqooyinka wanaagsan oo la qabanayo bulshada maaragtay cadaaladda loo falayo garsoor cadaali loo noqonayo taasaa keenaysa marka taas inaan ku dadaalo dhanka kale waxaa dalka iyo deegaankaba laga dhaqangeliyey qorshaha isbeddelka iyo dib u habeynta garsoorka oo sanadka labaad la galayo taas oo loo baahan yahay in sanadkan shaqooyin badan aan qaban doono haddii la yiraahdo sanadkii hadda dhamaaday maadaama sanadka ugu cusub uu yahay sanadka waxaa jiri doona dabagal in garsoor kasta ama gudoomiyaha maxkamadeeda oo gobola shaqooyinka uu qabanayo sidaan hadda riwaayadaba ka aragnay in la isku dabagali doono auditna la sameyn doono waxyaabo badanna marka ka federaal iyo ilaa deegaanka la isku dabahayo marka inaan
guddoomiyaashu waxyaabo badan oo isbedel reformka ama dib u habeynta ay ku keenaan baa loo baahan yahay. Garsoorku faham buuxa u yeeshay halbeegga iyo tiirasha asaaska u ah barnaamijka dib u habeynta maxkamadaha. Annaguna ka gole baarlamaan ahaan waan idin garab taagannahay hadday taageero tahay in garsoorka deegaanka kor loo qaado, garabkiinaan nahay in la dadaalo waxyaabahan shacabkan wakiil ka nahay. Dad badan oo aqoon-yahan baa jiro oo bannaanka taagan, maadaama annaguna si u yeelanay inaan shacabkeenna si cadaali ah oo xaqsoora aan maaragtay u dadaashaan ayaan idin soo jeedinayaa. kulankeenani waa kulan aada u qiimo badan. waxaana kulley aan leeyahay waa markii u horreysay kulan noocana aynu iskugu nimaadno. sidaa darteed waxaan leenahay hal la badiyo qiimeynta. cadaaladdu waxa weeyaan waa furaha. haddii cadaalad jirto oo cadaalad la helo, meel walba wax alla wixii looga baahnaa way ka hirgalaan. hadday amni noqoto, hadday siyaasad noqoto, wax walba way hirgelayaan. haddii laakiin cadaalad la waayo, meelaha qaar waxa ka dhaca waxa keenaya waa cadaalad darrada weeye. hay-adaha garsoorka waxaan ku dardaarayaa insha allah, cadaaladdu waa furaha nolosha weeye. wixii annagu aan dhaliil leenahay insha allahu waan sixi doonaa haddii la yidhaahdo. oo hadda waxa abad moodaaba hadda intan dambe ergadii nololo iman jirayba way yaraatayba, sababtoo ah dee dadkii cadaalad bay helayaan. marka insha allahu dee bashar baynu nahay, qof aan maanta dhaliil lahayna ma jiro. wixii wanaaga un baan rabnaa inaan qaadano haddii alla ka dhigo. garsoorkana waxaan leeyahay waxaa dhici jirtay sa hadda madaxweyne ku-xigeenku sheegay in la odhan jiray waa kala qaybsada inta maxaabiista lasoo joojiyo. waxaa dhici jirtay intuu askari soo galo inuu cid alle cidduu doonaya kala dhex baxo maxkamadda gudaheeda. wixii way hadhay. maxkamadda guud maanta quruxdeeda waa idinka arkay. halka qofka loogu xaqsoorayana waxaa kow ka ah dee waxa weeyaan meesha wax loogu xaqsoorayaa nooca ay tahay. kulle aanu dee gobollada kala mara, laakiin gobolka faafan jaar baan nahay. xaqiiqan isbeddel badan baa ka jira. xaqiiqatan isbeddel badan baa ka jira. marka waan idinku ammaanaynaa. midna noo ogolaado wixii dhaliil aan aragno inaan sheegnana hanala ogolaado. annaga laftigeegu dee ma wada nihin dad soo wada dumuuna xaggaase. garsoorka waan qabanaa, cadaaladda waan ka shaqaynaa. waxyaabo badan oo aan isleeyahay garsoorku xitaa ma qaban karaan baan qabanaa annagu. marka waan idinku ammaanaynaa. isbeddelkaa buuxa ee yimidna waan ku ammaanaynaa garsoorka. madaxdana waan ku ammaanaynaa oo guddoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen ay ugu horeeyaan. anu wax badan baan u soo joogay, iminkana wax badan baan u joogaa. inta ilaahayna gaarsiina wax badan waan u joogi doonaa. waxaan dadka kusoo koobayaa aad baad u mahadsan tihiin, laakiin aynu cadaaladda ogaano insha allahu. geestooda waxaa iyaguna warbixinada soo jeediyey guddoomiyaasha maxkamadaha 11 gobol ee dowladda deegaanka Soomaalida, kaasoo aqalku su'aalo ka weydiinayay qaabka shaqooyinka iyo dhaliilaha jira isla markaana ka jawaabayeen iyagu. hadafka iyo madaxa xafiiska in sanadka 2016 la arko maxkamad sare gobolka Liban oo sugtay sareynta sharciga xanaantina kalsoonida bulshada, taasoo tusaale u noqoto maxkamad sare gobolada. taa waxa weeye hadafka xafiiska aan cunaa noo qorsankan wahimilada xafiiska. hadafka xafiiska waa in iyada oo la abuuriyo cudur shaqo oo suurtagelisa in qaab ku saleysan sareynta sharciga oo kaliya macaamiisha dhinacyada iyo ay ku doodaan dacwad loo fidiyo adeeg garsoor oo cadaalad ah, firfircooni, waqti iyo kharash tashiil leh, isla markaana lagu gongaari karo.
warbixintii maxkamadda sare gobolka liibaan feelasha soo gala 2016 ee madaniga waxa weeye tirada dacwadaha ee soo gala maxkamadda sare gobolka liibaan 2016 inta ka soo wareegtay 2015 tirada horta feelasha soo gashay maxkamadda waxa weeye 13 feel madaniga tirada feelasha la fuliyay 10 feel 10 ka feel ee go'aanka heshay 9 ka mid ah warcafaan ayay ahaayeen degmooyinka ayaana fuliyay hal feel oo madani ah toos ayuu uga furmay maxkamadda kaasna racfaan ayaa maxkamadda loo qaatay dibna loogu soo celiyay wax caqabad ah oo jirta ma laha warbixintii maxkamadda sare gobolka liibaan feelasha ciqaabta soo gala waxa weeye 45 feel tirada kiisaska socda waxa weeye 2 feel tirada kiisaska go'aankeeda waxa weeye 43 feel tirada kiisaska macnaha ciqaabta ah waa 45 kiis tirada kiisas socda waa 2 kiis tirada kiisaska go'aankeeda waa 43 kiis caqabadaha jira haday jiraan macnaha go'aanka lidka ku ah wax caqabada ma jirto kanada faylasha raxaanka nagu yimid waxa weeye 12 fayl 12 ka fayl 3 fayl kaliya ayaan burinay hal fayl waxaan ka bedelay kala ku raacnay marka magacyadu ka liski oo qorayeen hadaarto inuu waa ka socon karaa halka waxa weeye gubistii xashiistan 408 kilogram oo laga soo qabtay degmooyinka gobolka halka waa xashiiskii lagu gubaya waa ka jawaanadii la soo qabtay halka waxa weeye cadeeb oo markii macnaha xashiiska lagu gubay maxkamadda gobolka waan tagnay si aan macnaha aan ogaan xashiiska in lagu gubay kale gudoomiyaha aad buu warbixintiisii aan fiican yahay laakiin hal su'aal aan weydiinayo waxa weeyaan kiisaska racfaanka laga soo qaatay looma sheegin nooc way kala yihiin ciqaab iyo madaniba marka su'aashaan weydiin lahaa gudoomiyaha si guud buu kormaray kiisaska oo racfaanka laga soo qaatay degmada laga soo qabtay nooc yihiin inuu noo sheego su'aasha kiisaska racfaanka kuwa caadi baan ugu sheegay racfaanka siin kiisaska macnaha ciqaab iyo madani bay iskugu jiraan xaggaas ka dheehan karta tirada ciqaabta iyo madaniga 12 feel ayaa racfaan lagu soo gaaray 12 feel 3 ayaan burinay 2 mid waan macnaha waxaan ka bedel kala ku raacnay doorka maxkamadda sare ee gobolka Erar waxa ay door laga maarmaan ah ka saaran yihiin gudashada waajibaadkooda soo socda waa in hay'adda garsoorka ee degmooyinka gobolka Erar iyo dhexdhexaadnimo ay fidiso adeeg garsoor oo hufan cadaali ah muradal ah bulshadeena wada gaara waqti yar kharash yar isla markaana degdeg u ah sareynta sharciga inaan xaq jirna hanaanka garsoor ee degmooyinka gobolka Erar inuu yahay mid laga maarmaan mid la saadaalin karo isla markaana cadaan ay ku dheehan tahay in aan qiimeeyno habka shaqo fulineed ee garsoorka iyo habka shaqeedka guud ee maxkamadda sare ee gobolka Erar bahwadaagta hay'adaha garsoorka aan la leenahay ama stakeholderadena ama partnerada aan la leenahay waxa weeye maxkamadaha degmooyinka xafiiska xeerlaanta iyo cadaaladda gobolka Erar iyo degmooyinkeeda komishinka gobolka Erar iyo komishinka asluubta gobolka Erar iyo xafiiska arrimaha haweenka ee degmooyinka qaranada dawliga ee ah bilaashka ah xafiiska nabadgelyada gobolka Erar xafiiska dakhliga ee degmooyinka gobolka Erar maxkamada sharciyada islaamka ee gobolka Erar iyo degmooyinkeeda iyo xurinta tababarka xirfadlayaasha sharciga hay'adda cadaaladda sanadka maxkamadda 2016 maxkamadda gobolka Erar iyo 8 degmaba waxa soo galay ciqaab 137 kiis go'aankana waxa helay 136 kiis hal yaa socda waxa kale oo soo galay madaniga 110 kiis waxaana go'aan helay 107 saddexna way socotaa waxaana sanadkan 2017 u wareegay 4 fayl gal dacwadeed dakhligan waxa soo xirooday 955 halka 3,000 baan ku darnay 3,000 baa laga gooyay statement of sleepki bankigu soo diray ayaa khalad halkaas uga dhacay marka waxa weeyaan 955 errorkaas jira waxaan waa shaxda koobaad ee muuqata waxa weeyaan rubci koobaad rubci labaad rubci saddexaad rubci afraad iyo wadarta guud dhamaantooda ay soo galay ee dakhliga maxkamadda sare ee maxkamadaha degmooyinka gobolka Erar iyo faahfaahintoodii tan weeyaan
gudoomiyaha maxkamadda sare ee gobolka Erar waxaan weydiinayaa hal su'aal oo ah wuxuu gudoomiyuhu kiisaska ciqaabta markuu mariyay wuxuu sheegay inuu propaganda ay ku dhex jirtay marka gudoomiyaha waxaan weydiinayaa ma kiiska ma propaganda ahaan baad ku qaadeen mise hate speech bal markay xukun heleen ma bayaan waxaan haynaa propaganda halka bal gudoomiyaha nooca intaas weydiinaya maxamed ismaaciil su'aasha kiisaska ciqaabta uu weydiiyay ee hal kiis oo propaganda ah ku jira uu leeyahay waa runtiisa way jiraan taana hate speech un baa lagu qaaday propaganda qof hadduu maqsuud tahay qof kale aflagaadeeyo defamation oo kale noqonaysa magac dil badan ciqaab laba noqon kartaa marka hate speech kan ku qaadnay propagandaas buu ahaa wax saas ma siihayn haddii aan ku horeeyo shaxdan ugu horeysa halkan waa isbarbardhigga faylasha soo galay iyo dakhliga la soo xareeyay sanad miisaaniyaedkii oo isbarbardhig ku sameynayno 2015 iyo 2016 sanadkii 2015 waxaa soo galay kiisaska guud ahaan waxay ahaayeen 420 halka kiisaska go-aanka helayna ay ahaayeen 399 waxaana u wareegay 2016 uu soo wareegay 21 kiis waxaana la soo xareeyay dakhli dhanna 492,500 sidoo kale sanadkan 2016 maxkamadaha gobolka Doolo waxaa soo galay kiisaska guud ahaan 506 kiis waxaana go-aan helay 487 kiis waxaana maxaan ku dhahday u wareegay 2017 19 kiis dakhliga la soo xareeyay ee sanadkan 2016 waxay ahayd 1,720,380 maxkamadda sare ee gobolka Doolo waxaa soo galay kiisaska guud ciqaab iyo madaniba 72 kiis kiisaska go-aanka helayna 69 kiis waxaa u wareegay sanadka 2017 waa 3 kiis sidoo kale dakhliga guud ee soo xareysay maxkamadda sare ee gobolka Doolo 394,235 maxkamadda degmada Wardheer kiisaska guud ee soo galay madani ciqaab iskugu jira waa 184 kiis waxaana go-aan helay 174 kiis waxaana u wareegay 2017 toban kiis ayaa u wareegay dakhliga laga soo xareeyay 2016 506,285 kiis percentage ahaan markii loo xisaabiyo faylasha go-aanka helay waxay noqonayaan 95%. maxkamadda degmada Galaadi waxaa soo galay 61 kiis waxaana go-aan helay 57 kiis waxaana u wareegay 2017 4 kiis dakhliga ay soo xareysay waa 218,000 percentage ahaan noqonaysa 94%. maxkamadda degmada Book waxaa soo galay 53 kiis waxaana la go'aamiyay 52 kiis waxaana u wareegay 2017 hal kiis hormuud xubin social worker hormuud ah ka kuwa hormuudsanaa garsoorayaasha kiisaska qaadayay ninkani ilan kiis ma qaado balse sababtu garsoorayaasha ugu horumaray laftarkeeda arrintaasi macquul aniina ma ahay bal su'aashaasaan ku celinayso xubinka social worker ee hormuudka gobolka ah يعني قرصورك كور مريم تشيله. وحولي حبك هرمود كاي سوشيال وركر كا سيدي لوجو هرمري قرصورة هير قبلها وت سوشيال وركر كو قرصورك سووا ورني شغالة هديو موديلية وهو حق وليه إذا دول سبها عاته إنه كهرية ثانا تاسع كذا شوية waxaan sanad miisaanadka 2016 xooga saarnay waxyaabahan soo socda helitaanka nidaam cadaaladeed oo ku salaysan sharci cadaan ixlaan iyo isla xisaabtan waxaan kor u qaadnay fulinta go'aanada garsoorku gaadheen waana 75 waxaan suurto gelinay galdacwadeedyadii soo galay galdacwadeedyadii soo galay oo ah oo dhannaa 537 fayl inay go-aan heleen 92%.
waxaan suurto gelinay in la dayactiro 6 xafiis oo kala ah maxkamadda sare ee gobolka iyo 5 maxkamadood oo degmooyinka ka mid ah waxaan sameynay boorka maxkamadda sare waxaan xooga saarnay ka jawaabidda cabashooyinka totalka ayaa caddayn doona inay tahay macnaha 600 iyadoo shax ah ayaa halka warbixintii oo kooban ee hadda yaan kusoo jeedinaynaa maxkamadda sare ee gobolka Jarar waxaa soo galay 70 fayl oo ciqaab ah 34 fayl oo madaniga guud ahaanna waa 204 fayl 68 fayl go-aan ayay heleen waa ciqaabta 30 fayl oo madaniga ciqaab ay heleen go-aan guud ahaan waa 97 fayl 98 fayl waxaa gudbay 6 fayl 2 waa ciqaab 4na waa madani laba su'aalood saaran baa weydiinaya gudoomiye Cabdiraxmaan inkastoo waqtigu ku yaraa laga yaabay waqtiga dartii aanu nooga faa'iideyn laakiin imika su'aasha nooga faa'iideeyo mid waa xujadaha degmooyinka inay xujada leeyihiin in kale maxkamadaha gobolka Jarar iyo sidoo kale dhismayaashooda labadaas su'aalood saaran baa weydiinaya horta waqtiga ayaa iga gaaray baan maleynayaa haddii aan soo bandhigi lahaa su'aashan jawaabteedu waxay ka muuqan lahayd meesha ayay ka muuqan lahayd anuu gaadhiba degmooyinkii ayaa laakiin la iga gaadho waqtiga iga dhacay xujadaha waa run way jiraan degmooyin ilaa 5-6 meelahaas baan hadda maraynaa inta kalena waan dhammaystiraynaa inkastay jiraan caqabado meelaha qaarkood dhulka waa in la xujadeeyo dad macnaha maamul oo aan ogolayn oo la heli karo sida degmooyinka qaarkood oo kale oo challenge-kooda weli una haysto haddana dhinaca wixii aan ka qabanay waa ilaa 5 degmo weeyaan dhinaca xafiisyada dayactiro ayaan xagga hore ku sheegay waan u maleynayaa ilaa iyo 5-6 meelahaas wax gaaraya laakiin waxaa jira xafiisyo aan maxkamadan xafiisyo lahayn oo xagga dambe inaan ku faahfaahiyo ay ahayd maxkamadda degmada Daroor maamulka magaalada labada midna xafiis male maxkamaddu waxay ka kooban tahay gobolka Faafan 12 maxkamad degmo 3 maamul magaalo iyo maxkamadda sare gobolka Faafan maxkamadda sare gobolka Faafan waxaa ka howlgalay 8 fadhi 3 ciqaaba 4 madani iyo mid arrimaha federaalka garsoorka ka howlgala maxkamadda heer gobol oo 20 garsoore haddaan ku xujisiyo warbixinta dacwadaha madaniga ah 391 dhinaca madaniga ayaa soo galay 186 ka mid way socdaan 205 ka mid go'aan bay heleen waxaa wareegay 186 faylasha rafcaanka madaniga ku yimid maxkamadda soo gaaray tiradoodu waa 89 fayl 66 ka mid go'aan bay heleen 23 ka mid way socdaan garsoorka 720 ee heer gobol waxaan guud ahaan soo qaadanay annagoo anshaxooda aqoontooda tayada go'aamada ay gaareen shaqagalka go'aamada ay gaareen tiradooda annagoo ka duulayna 7 garsoore ayaanu aragnay in ay mudan yihiin in hormuud ahaan loo aqoonsado garsoor gobol ahaan saasaan ku soo qaadanay halka xubin ka mid ah tallaabo anshax marin laga qaaday haddaan dhinaca degmooyinka u gudubno warbixinta ku saabsan feelasha madaniga ah degmooyinka si guud waxaa u soo galay tirada feelasha ee degmooyinka iyo magaalooyinka soo galay waa ku saabsan dhinaca madaniga waxa weeye 2564 fayl oo madani ayaa soo galay faylasha waxaa go'aan helay 2099 fayl waxaa la fuliyey 466 fayl oo kamid waa la fuliyey 465 kamid 2017 ayay u wareegeen dhinaca ciqaabta haddaan eegno isla degmooyinka iyo maamul magaalooyinka wadarta guud waa 1397 waxaa wareegay 10 ka mid ah oo 2017 ka wareegay tirada kiisaska go'aanka helay waxaa weeye marka la isku daro 1387 fayl haddaan eegno dhinaca bilicda degmooyinka iyo bey'ada xafiisyada maxkamadaha xujada leh ee degmooyinka gobolka waa 12 saan xusuusanaya sanadkii hore waxa maxkamada oo xujad lahayd ma jirin dadaal ay sameeyeen waxaa hadda xujadii si rasmi u haysta 12 degmo
ربورت أدور أكسب صوت ياري لكن هل سؤالا ويدين لها وعشان مركب وكرمال كتجي إنه وحياة بدن عقبات بدن كسر أركي التجمدي لكن تلاقوي كقاعدين عقبات تذكر تجمدي ككوعي مو شيء مركا سؤال شيء دوا إنتاج كويسة. سؤال شلبات قدومية فتحي عقبات هذا أركتين تلابا نوعيات كقاعدين runtii marka aan tagayna talaabaqaadkiina wuxuu maahan caqabadaha jira horta in la arkayo muhiima markii aad cudurka heshaa iyo dawada heshaa marka caqabadaha si guud ama heer gobol ha ahaato ama heer degmo ha ahaato caqabadaha aan aragnay ee ugu badan caqabado way badnayd laakiin tirada ugu badan bay dhowrka aan soo qaadanay dee kuwa markaa talo laga bixinayay lagala hadlayay iyagoo qaar noqon karaan maxaan ku dhaha aqoon la-aan laga yaaba inay dhici karto qaarra saan u arkaynay inta badan ay ahaayeen fudaydsi ay ahayd caqabadaha marka aan aragnay qaarna tallaabo laga qaaday magacyadun baana sheegin waa sheegay maxkamadaha qaar dad tallaabo laga qaaday way ku jirtay oo tallaabo qaad guddigu uu sameeyey way jirtay kuwa aanu maxkamadda guud u soo gudbino oonu awoodda garsoorka iyo guddiga maamulka garsoorka ee deegaan ugu soo gudbinayna way jirtay marka qaabkaanu xalka u arkayna noocaasay ahaayeen in dhibaatooyinka ugu badan aanu isla garanno maxkamadaha degmooyinkana si gaargaara iyo si guudba markaa isu nabad waxaan usoo bandhigna bay ahaayeen oo xitaa si dhitayla degmo walba waxa gaarka ku ahaa iyo feelasha aanu tusaale ka siinayna ayaa ahayn marka caqabadu wax caqabada si guud u jira daaweynta u baahan baan anigu arkayna inay qaabkaan usoo dhignay warbixinta oo kooban waxaa maxkamadda sare iyo maxkamadaha degmooyinka gebi ahaanba doorkan ay qaatay faylal tiradoodu ay dhan tahay 510 waxay isugu jiraan faylal ka soo wareegay sanad miisaaniyadeedkii 2015 oo ahaa 52 fayl oo kala ahaa 40 fayl oo madani iyo 10 ciqaaba inta kalena waxay ahaayeen faylashii soo galay isla sanadkan 2016 cadadka faylasha aan kor ku xusnay isku geyntoodu waa kuwii soo wareegay iyo kuwii sanadkan soo galay oo waxaa 510 waxaa go-aan helay 475 fayl halka 30 iyo 5 fayl 30 iyo 5 fayl 30 iyo 5 fayl ee kale ay u gudbeen sanad miisaaniyadeedka 2017 waxayna kala yihiin ciqaab 175 fayl baan qaadnay gebi ahaan intoodiina go-aan bay heleen badanigana 335 fayl bay ahaayeen 300 iyo 1 baa go-aan helay 30 iyo 4 way gudbeen halka hore hal number baan khalday baan filayaa oo ah 476 fayl baan go-aan ka gaadhnay halka dacwadaha socday gudbayna ay yihiin 34 fayl oo intaba madani ah waxay maxkamaduna soo xariyeen dakhli dhan 1,506,701 bir intaas oo warbixintii koobnayd iyadoo shaxaana waatan waxba faahfaahin kale uma baahno wadarta faylashu waa 510 476 baa go-aan helay 34 way gudbeen dakhliga guud ee soo galayna waxa weeyaan 1,506,701 riyaal faylasha degmada ugu tirada badan leh waa degmada Erar iyadana lacagta ay soo xareysay iyo faylasha soo galay iyo faylasha ay go-aan ku dhibay korbaad ka wada aragtaan waxba si faahfaahin ma baahno gobolkana waa kaas haddii aan ka gudbo qaybaha dacwadaha la qaaday sanad miisaaniyadeedkan 2016 sida aan kor ku soo sheegnay waxay maxkamadda sare iyo maxkamadaha degmooyinku ay qaadeen faylal tiradoodu dhan tahay 510 oo isugu jira madani iyo ciqaab madanigu 335 bay ahaayeen oo 301 waa go-aan helay halka ciqaabtu 175 ay ahaayeen dhammaantoodna ay go-aan heleen tirada dacwadaha ay maxkamad kasta qaaday iyo qaybaheeda kala duwan shaxdan hoose iyaduna ka muuqdaan iyadiina waa taas maxkamad kastoo degmo iyo tii sare dacwadihii ay qaatay maxaa madaniyaha iyo maxaa ciqaabaha maxaa go-aan helay iyo maxaa u gudbay 2017 intaba shaxdan ay ku cad yihiin sanad hore shaxdan waxaa kusoo biiray oon ku jiri jirin 2 degmo oo kala ah Dhuunjar iyo Daymeed gudoomiyaasha iyo garsoorka sidii hormuud u kala yihiin inuu noogu daro sidoo kale maxkamadaha maadaama sanadkii hore awaamirtii gudoomiyaasheena nasiinay ka mid ahayd in maxkamadaha gacanteena wixii aan ku jirnay gacanteena galaan maxkamaduhu si xujado u kala haystaan kuwaan haysan sababta bila xujado u yihiin iyo sidoo kale qurxinta maxkamadaha iyo dhismayaasha maxkamadaha inta in loogu daro mahadsantiin su-aasheedii hore hormuud hay'ad waan sheegay si labaad ah dhismayaasha waqti ay ka dhacay xagga u dambeysay iyagana iyu qoran yihiin marka waan kusoo daray warbixintayda kuwaas halkaasay ku jiraan kuwa dayactar kuwa ay sheegeen
xujada leh kuwa deerka leh kuwa dherka leh warbixintii waxay gaarsiin weyday 3 page baan filayaa in arrimaha dhismaha iyo arrimaha beeraha iyagana warbixinta ay ugu jiraan. maxkamadda sare gobolka Nolob waxay dhex degan tahay maxkamadda degmada Ceelweyne. sanadkan ayaan dhul u qabtay markii ay suurto gasho baana loo dhisi doonaa insha Allah taala idmo cagaarinta way cagaaran tahay oo sanadkan ayaan dhul ku beernay sabarlogadiina waa loo sameeyay laanshiruka degmada Garbo faylasha soo wareegay iyo kuwii soo galay 26 bay ahaayeen 24 waa lagu aamiyay 24 waa la fuliyay wax caqabadana ma jirin degmada Garbo iqaab waxaa soo galay 14 kiiba go'aan bay heleen wax caqabadana ma jirin degmada Garbo isugeyn faylasha soo galay waa 40 laba fayl ayaa socdo 38na go'aan bay heleen wax caqabada iyo wax xalin u baahan ma jirin degmada Garbo dhirteedu way cagaaran tahay lahaansho dhuleed way leedahay wayna deeran tahay gudoomiyaheedii xaadir ma aha oo uu xanuunsaday una jiran yahay degmada Garbo faylasheeda 24 go'aanka heshay waxaa qoray Cabdi Samsam waana ninka aanu hormuud ahaan u qaadanay gobolkii degmada Dhuxun sugeynta faylasha soo galay waxay dhanyihiin 24 ka mid ah way socdaan 16na go'aan bay heleen degmadaasi way garaysan tahay meel fiicanna way ku taallaa lahaanshana way leedahay degmada Dhuxun faylasha waxaa qoray Xasan Nuur Sheekh Maxamed Dhuxun ma jiro wax ku tagrifala iyo wax laaluushiya wax uu sameeyay xagga anshaxana uu fiican yahay gudoomiyuhu dakhliga si duuduubay u sheegay haba yaraatee in waxay ahayd uu noo faahfaahiyo degmo walba waxay soo xaraysay haddii aan ka gudbo su-aasheedii labaad waa su-aashii waa la iga horreeyey inaan ku noqdana waxba dhib ma laha gudoomiyaha Baabili su-aashiisii si duuduub baan u sheegay waxaana kalifay foomka maadaama uu dakhligu qornayn waa si gooni ah ayaan u diyaarsanay marka si duuduub haddaan u sheegay iyo haddii degmo loo yeeriyaba waxay tegi doontaa tuutolka hoose halkaasaan kaga baxay halkan warbixintii maxkamadda sare ee gobolka Daawo sanadkii sanadka 2016 ayaan soo jeedinaa insha Allah bismillaah kariim waxyaalahan ma iska dhaafaynaa hordhaca iyo magaranaysa qaab dhaqankii waxa iska dhaafaynaa warbixinta caadiga aan iska gelinaa insha Allah bismillaah kariim iska soo koobaynaa warbixintu intan bay ka kooban tahay jadwalka shaqada iyo faylasha oo faylasha madaniga faylasha ciqaabta iyo faylasha racfaankeedu waxyaalahaas ka kooban tahay jadwalka shaqada ugu horeeyo waxaan marka horeysa aan sanadkan dejisanay insha Allah bismillaah kariim koob waxaan dejisanay bal nidaamkan ku shaqeyn lahayn guddiga maamul garsoorka inuu yeesho shirkiisa billaha ahaa in maalin walba arbacada garsoorayaasha heer gobol iyo guddoomiyaha ay kulmo yeeshaan in shaqaalaha taakulaynta bishii mar lala kulmo in shirka cadaaladda si joogta loo sameeyo khamiis walba faylasha maxkamadda sare gobolka Daawo ee madaniga waa 9 fayl 9 kuna go'aan bay heleen faylasha qaabka waa 39 ka mid ah go'aan bay heleen Allah wuxuu u gudbay sanadka 2017 u gudbay faylasha racfaanka ee maxkamadda sare ee gobolka Daawo soo galay madaniga waa 9 fayl weey 9 fayl ee madaniga 9 waa racfaan bay nagu soo galeen ma jiro fayl anagu aan furnay oo si toos ah u furnay ma jirto 9kaas ma maartay qayb aan ku raacnay ma jirtaa qayb aan wax ka bedelay ma jirtaa marka laakiin waxa badan intaan aan sixinay baa badan 5 ka midna waan sixinay 4 ka midna waan burinay
ciqaabtana sagaal fayl iyagana wixii maaragtay racfaan ugu soo galay sagaalkuna go-aan bay heleen afar ka midana waan gudnay 5 ka midana waan ansixinay saas iyagana ahayd haddaan faylasha kala saarsaarkooda aan galno waxa weeyaan gobolka daawo faylasha ugu badan faylasha soo galay 4 ka mida waa dil 3 ka mida waa kufsi mid waa musuq 10 waa xashiish hal waa tahriib hal waa budcad hal 6 waa tuugo hal waa khiyaamo 4 waa dhaawac 5 waa dambiyada kale waa faylasha soo galay gobolka daawo iyo maxkamadda gooyinka oo iyadana soo kale waa kala socon yihiin waxaan weydiin lahaa su'aal ah qaybta hormuudka laba xubnood buu sheegay oo gobolka degmada Mubaaraga gobolka degmada ma labadaba hormuud ah maadaama uu dabagallo sameeyay inta ma weydiin lahaa ومثل قدومي عبد القادر شيخ أحمد نور دين محكمة دegmada Jarati hormuudka halkan ay ka muuqdaan degmooyinku waa 5 ruux oo 4 degmo oo 5 ruux ka soo qaadanay gobolkana waa 1 ruux marka saa darteed hormuudku waa 6 ruux ma aha labada bis ma aha maasanta haddaan uga dhinaca horraacteeda tirada guud ee kiisaska soo galay gobolka ciqaab iyo madani waa 867 guud ahaan gobolka Shabeelle ciqaabtu waa 302 waxaa go'aan helay 287 waxaa socda ciqaabta waa 15 kiis guud ahaan gobolka Shabeelle madaniga waa 525 waxaa go'aan helay madaniga 477 kiis waxaa socda madani 48 kiis kiisaska ciqaabta ee madaniga ah ee socda waa 63 guud ahaan waxaa go'aan helay 764 tirada guud ee kiisaska racfaanka nagu soo galay sanad miisaanka 2016 waa 46 fayl kuwaas oo kala 40 madani ah iyo 6 ciqaaba kiisaska la fulinay fulinta maray waa 86% warbixinta iyo waxqabadka xogta iyo qareennada kiisaska qareennada dawliga ah ee maxkamaddu u qabatay ee hareeraday qareen waa 6 kiis qareennada ku qoran guud ahaan gobolka waa 4 waxaan kormeer shaqo lagu sameeyay dhammaan maxkamadaha degmooyinka ee gobolka waxaa tababar dhanka wacyigelinta la siiyay degmooyinka kale ah maamulka magaalada Goday iyo degmada Qalaafe waxaa la sameeyay shirar joogto ah oo la yeeshay garsoorka heer gobol iyo heer degmo oo ah 15 casho mar waxaa si joogto ah loo qabanay loona adkeeyay wada shaqeynta hay'adaha cadaaladda cagaarinta xafiiska waxaa la soo wareegay dhismihii maxkamadda degmada Iimay Bari oo ka maqnaa oo muddo 30 sano ka maqnaa gacanta waxaana dayactiray haddana waa lagu shaqeeyaa kormeerka waxaa loo sameynayaa in khibrad wadaag iyo degmooyinka liita kor loo soo qaado maaragtay xagga shaqada iyo waayaragnimadooda marka degmooyinkii ugu cusbaa bay ahaayeen degmooyinkaasi kuwan kormeerada ku sameynaya degmooyin qadiim iyo muddo jiray bay ahayd miyaanan ugu habboonayn in la kormeero degmooyinka cusub ee xagga shaqada in wax la baro u baahan marka kuwa gobolka Shabeelle marna dhinaca u xoojinayaayo degmooyinka in lagu badiyo cusub kormeerka halka degmooyinka qadiimka ama shaqada ku badan tahay aduu u raacay mooye marka saasan anaguna weydiinayaa degmooyinkaasi kor qaadadii iyo waxa u baahan yihiin khibrad wadaag waxaad u tag weyday gudoomiye yani qiimayntanadii iyo kormeerkii waxaan sameynay oo dhanba iyadoo hardware oo dhammaystiran oo tallaabooyinkeedii leh oo waxeedii leh oo dhammaystiran yaan ku soo diyaarinay hardware oo guddi aan ku saxeexnay saasaan taana ku soo gudbinay hordhac haddaan ku bilaabo sidaa wada ogsoonahay bilowgii sanadkan dhammaaday 2000 waxaan qaadanay qorshe tubeed guud oo nooga gol leenahay xaqiijinta hiigsiga hibilada hay-adaha garsoorka ee DDS guud ahaan qorshe tubeedkan oo ah mid aan uga baaldahaba inooga harsan isla markaana inoo horseeday karu sheegidda iyo meelmarinta qorshooyinka hay-adaha ee muddada dhow iyo kan fog inaan waxyaabahan qoraaladan faraha badan waqtiga ku dhimina ma aha sidaas darteed maxkamadda sare gobolka dheer iyadoo ka duuleysa doorkeeda kaga aadan xaqiijinta sareynta sharciga ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo hirgelinta xasiloonida ayaa waxay bartilmaameedsatay xaqiijinta waxqabadka muuqda ee kaga aadan gudashada waajibaadkeeda shaqo ee guud
waxaan hiigsanaynaa inaan ugu adeegno bulshada ku nool gobolka Afdheer oo ay helaan adeeg garsoor oo degdeg ah qarash yar madax bannaan dhexdhexaadnimo ay ku dheehan tahay inaan kasbanno kalsoonida shacabka waa hibsiga ugu horeeyay in hufnaanta adoog garsiirkeenu ay soo jiidato bulshadeena oo ay bulshadu ay ku qancaan go'aanadeena khilaafkoodana ay ku xalistaan maxkamadaheena ayaan hiigsanaynaa habdhaqanka sugidda sareynta sharciga cadcadaanta isla xisaabtanka waxaan waa tiirasha aanu islahayn baaxaduleedka gobolka tanna waa iska caalad guud gobolku waa 11 gobolada gobolka jiita uu deegaanka kaga yaalo waa jiita koonfureed fogaanshaha uu deegaanka u jiro 850 kilomitir baa lagu qiyaasaa dariska waxa uu leeyahay dhinaca Soomaaliya dhinaca Oromia dhinaca gobolka Shabeelle dhinaca gobolka Liibaan khayraadka dabiiciga wabiyaal baa mara cogta inta ugu muhiimsan waa hadda waa qaybtan faahfaahinta waxqabadka qorshaha aan sanadkan haddaan faahfaahino waxqabadka maxkamadaha gobolka Afdheer waxay ku qodomaan tiirar soo noqnoqda oo shaqada garsoorkuwa ay ku tiirsan tahay ka shaqeyntooda kuwaasi oo kala ah madax bannaanida isla xisaabtanka ballaadhinta adeega ay bixiyaan maxkamadaha gobolka Afdheer tayeynta adeeg bixinta garsoorka iyo maxkamadda gobolka haddaba maxkamadda sare ee gobolka Afdheer iyadoo ka duuleysa ballanqaadyadii hay'adaha garsoorka ee noo qabsoomay sanad miisaaniyadka 2016 waxa way arrin contradictory ah iga muuqata meesha warbixintiisii wuxuu yiri gudoomiye garsoore maxkamadda gobolkan yaan degmo u dhaadhiciyay degmada Hargeysa maadaama uu xanuunsan yahay manaha gudoomiye maxkamadda degmada inuu ka shaqeeyaa gobolka inuu la shaqeeyaa halkaas macnaha contradiction ma noqonayso uu garsooruhu degmada ka shaqeeyo feelo go'aamiye haddana gobolka kula shaqeeyo hadda waxaan ka arkay macnaha warbixinta inta feelo go'aamiye degmadiina uu ka shaqeeyaa baa tigro macnaha shaqadiisii buuxinaya marka shaqadu soo ma noqonayso contradiction feelo aan bil laga qaadanaya jira oo xagga tagaya marka taas aan leeyahay wax contradiction jirta laga yaabaa baarta noo faahfaahin su-aasha ahayd garsoor gobol iyo degmo isaga shaqeeya inkastoo go'aanada uu qoray ay bilihii hore ahaayeen gudoomiyahan hadda degmada ah bishii 7 meelahaas weeye meeshii marka uu xanuunsaday oo inaga tagay go'aanadii 6 ah ma garatay go'aanadii 6 ahaa 7 bilood ka hor ayuu qoray haase ahaatee laakiin haddaan u baahano anu waxaan qabaaba inuu subaxda gilinkii hore hadduu ka shaqeyn karo maxkamadda gobolka intuu nooga shaqeeyo gilinkii dambena degmo hadduu nooga shaqeyn karo inuu nooga shaqeeyo oo asagoo aysan diidaneen wax shaqo isoo riskeymaadna kama imaanayso shaqo in la qabto weeye hadduu awoodo uu qabto gilin hore hal saaca taa intuu ka soo shaqeeyo tan inuu ka shaqeeyo anu waxba ilama ahayn hadda ahaan fikir ahaan si guud halkan shaxdan idinku waxa way idinku cadahay sanadkan waxa soo galay 241 madaniya soo galay iyo in soo wareegtaba ay isugu jiraan 241 kiis oo madaniya ciqaabtu waa 198 kiis wadarta guud markii la isku daro labada waxa weeye waa 439 kiis waxa madaniga 241 ka ahaa ka helay go'aan 228 sidoo kale ciqaabta 198 bay ahayd waxa go'aan ka helay 193 wadarta guud ee sanadkan go'aan ka heshay waxa weeye waa 421 kiis madaniga wareegay waxa weeye waa 13 kiis ciqaabta wareegtayna waa 5 kiis kiisaska naga wareegay sanadkan waxa weeye waa 18 kiis guud ahaan dakhliga aan soo xareynay sanadkan waa 1,161,230 bir isbarbardhig haddaan sameyno sanadkii hore kiisaskii iyo meeshaan taagnayn iyo sanadkan meeshaan taagannahay guud ahaan waxaa soo galay sanadkii hore ama sanadkii ka horreeyay ka soo wareegay 440 kiis waxaa go'aan heshay 424 kiis waxaana 2016 u wareegay 16 kiis dakhligu sanadkii hore wuxuu ahaa 783 kiis 139 wuxuu ahaa dakhligu 783,139 bir guud ahaan sanadkan marka waxaa soo xarooday
ama soo galay maxkamadda sare ee gobolka iyo degmooyinka hoos yimaada 439 kiis oo macalkuwii soo wareegay ku jira waxaana go-aan heshay 421 kiis sanadka dambe waxaa u wareegay 2017 waxaa wareegay 18 kiis dakhliga sanadkan aan soo xareynay waxaa weeye waa 1,160 milyan iyo 1,160,230 bir riboodka uu soo jeediyey haddaanan nin si kale ii dhaafin kuma maqlaynin wax qareenoo maxkamadda ka tirsan oo adeeg bixiya maxkamadda gobolkuna kiisas waaweyn oo laga maarmaan ay tahay in qareen la helo ayaa jira marka dee sideeba cadaalad lagu suri karaya haddii aynan maaragtay dadka dee adeegsanayaashu aynan qareen helin ka caawiya kiisaska ama xukuumadda laga gaadhayo gudoomiye axmed cali wuxuuna weydiiyey qareen miyuuna jirin warbixinta waan kusoo darray qareenka sanadkii hore ayaan dhibaato ku qabnay laakiin sanadkan goobtiisa shaqo uu ku sugnaa shaqooyinkana uu qabtay 25 kiis buu galay 23 baa go-aan heshay intii shirweynahan iyo qiimeyntani socotay ayaa lagu soo bandhigayay dood ku saabsan qaabka shaqaalaha iyo si loo kordhinayo mushaharkooda xeer nidaamyahani waa xeer nidaamyo ay ka farcami doonaan shuruuc si khaasa mowduuc kasta u qaadaa dhigta awaamiiro lagu faahfaahiyo arrintaas tusaalahaan kale marka mushaharka laga sheekaynayo xeer nidaamyahani wuxuu dejiyey mushaharka uu yeelanayo qofka civil servantiga maxkamadda guud ama shaqaalaha taagan maxkamadda deegaanka shaqaalaha taagan ka noqonaya waxaa mushaharkiisa lagu sargoyn iyadoo laga duulaya baaxadda shaqo waxaa lagu sargoyn baaxadda shaqo ee mataqaanaa uu qabanayo iyadoo lala eegayo awoodda dhaqaale ee deegaanka marka mushaharka la jaangoynayo halbeegga lagu salaynayo sharciga la dejinaya waxaa ku xigi doonta awaamiir sheegta booska shaqo laftigiisa oo baaxaddii shaqada sheegta oo deetana halbeegyada cabir ee waxqabadka ee booskaasa sheegta taasi ayaa markaa faahfaahinaysa marka leeyahay iminka dhow garsoor baan mushaar baan qaadanaa dabcan mushaarkeenu ka duwan yahay mushaarka mataqaana ay qaataan shaqaalaha kale laamaha kale dood ka shaqeeyaan sababta aan ku kala duwanaana waxa weeyaan dabciga shaqeeya ka shaqeyno iyo baaxadda shaqeyn hayno ayaa kala duwan marka wuxuu gobol xaal u yahay awaamirta laga soo saari doono oo sal ayuu mataqaana u yahay kana laga duulaya wey lagama leexanayo waa qodob waa xeerkii guud wey qofka xanuunsan xuquuq fara badan ayuu awaamirtani mataqaana ayuu xeer nidaamyahani u xeeriyey iyadoo la eegayo xanuunkiisa sida uu shaqada ugu soo noqon karo sidoodana shaqaalaha taageerada maxkamadda guud waxaa lagu maamulayaa xeer nidaamyahan oo ah xeer nidaamiye ku soo baxa hab waafaqsan sharciga islamarkaana fasiraya bayaankeena shaqaalaha aadna barbar dhigaysaan ee employment lowga lagu maamulana waa shaqaale aan dowladda shaqaalo u ahayn laakiin lagu maamulo xeerka shaqaalaha privateka ama mataqaanay contract employment contract lagu maamulo marka way kala duwan yihiin kama kala duwan oo keliya 3 bilood iyo 6 bilood farqiga u dhaxeeya xataa waxay ku kala duwan yihiin hadduu qofku shaqada ku soo noqon waayo sida loo magdhabayo sida qofkaasi markuu shaqada ka tagayo loo aba bixinayo iyo xataa u kala duwan yihiin oo midna waa shaqaale dowlad midna waa shaqaale private dabciga sharciga u kala dhaxeeya sharciga employmentiga iyo sharciga civil servantiga ayaanay kala duwanaanshahaasi ay ka soo burqanaysaa marka loo yimaado su-aasha u dambaysa ee ah xubnaha guddiga ama heer deegaan ku koobtay maxaad heer gobol iyo heer degmo waad uga dhaadhicin weydeen horta waa marka koowaade waxaad ogtihiin hay'adda garsoorka waxay u aasaasan tahay maynkeedu waa in bulshada la sii adeeg bixin garsoor marka waa tallaabo koowaad horta marka in shaqaalaha taakulaynta oo iyaguna garsoorayaashaasi taageero u ah oo la-aantood ayna garsoorku shaqada qaban karin marka maxkamadda markii hore dhib bay ku ahayd in talalaakiga jiroodka dhexda ka adeegayay ay muddo ay sugto mataqaanay in ay hay'adda mataqaanay soo meerayso sidoo kale hanaanka xulashada iyo meelayntu si guud buu awaamirtan ugu yaalaayay xeer nidaamyada ugu yaalaayay mid maxkamadda guud ka bilaabmaya maaha boos kasta oo shaqo sida ay xeer nidaamyada faahfaahinayso waxaa marka hore lagu dejin booska meesha uu ka bannaan yahay ama maxkamadda uu ka bannaan yahay sidoo kalena isla xafiiska adeega shacabka ee mataqaanay ee maamulo arrinta xeer nidaamyaha uu ku maamulo shaqaalaha laguma dhex aasaasin guddiyada xafiisyada dhexdooda ama heer degmo ama heer gobol ku qaabilaya cabashada shaqadoon laakiin wuxuu ku aasaasay directive ku soo baxay hirgelinta xeer nidaamyaha
xeer nidaamyahan iminka innagu aynu meesha ku hayno ee rabna inaan insha allahu baarlamaanka horgeynana waxaa mataqaanaaye ka xalaaloobaya oo u yeelanaya ugu yaraan 13 awaamiirood mid ka midna waxay la xidhiidhaa xulashada iyo meelaynta iyo qaadashada shaqaalaha iyo qaabka loo qaadanayo marka kan waxaa lagu aasaasay guddiga guud ee awoodda u sarreysa u leh shaqaalisiinta laakiin hanaanka ay maxkamadaha gobollada iyo degmooyinku xulashada ugu samaynayaan ay ugu soo gudbinayaan maxkamadda guud xeer nidaamyaha awaamirta faahfaahinaysa ayaa lagu sheegi doonaa wadmaadsantii sida loo ogsoon yahay shirweynaha maxkamaduhu sanadkiiba hal mar ayay yeeshaan shirweynahaasi waxa qayb ka ah 12ka maxkamadood ee gobolladeena guddoomiyaasha ka shaqeeya ama mas'uuliyiinta ka ah garsoorka maxkamadda guud iyo mas'uuliyiinta maxkamadda heer deegaan ayaa ka ah ajendayaasha ugu muhiimsan ee ka wada hadalana ama aan shirweynaha kaga tashano waxa qayb ka ah sidii loo tayeyn lahaa ama hadba loo dadejin lahaa adeegga garsoor ee ay hay'adda garsoor bixiso dabcan adeeggaasi si aan u tayeyno waxa qayb weyn ka qaata shaqaalaha adeeggan inoo haya oo laba loo qaybiyo marka maxkamadaha loo yimaado shaqaalaha labadeeda nooc waxay kala yihiin shaqaalaha taageerada ah amaba shaqaalaha adeegga bixiya iyo shaqaalaha adeegga meynka ah sida garsoorka iyo waxyaabahaas bixiya marka hadda ka hor sida dal ahaanba sida aynu wada isticmaali jirnay shaqaalaha supportive-ka loo yaqaano ama taageerada ah loo yaqaano waxay hoos tagi jireen oo maamulkooda iyo meeleyntooda iyo dalacsiintooda mushaaharaadkooda arrimahaas oo dhan waxa ku shuqul lahaa xafiiska adeegga shacabka amaba heer qaran wasaaradda adeegga shacabka hadba sida aynu u naqaano laakiin iyadoo laga duulayo qodobkan la xidhiidha madax bannaanida maxkamadda ee dastuurku dhigayo dastuurka dalka iyo ka deegaankuba iyadoo laga duulayo waxaa dal ahaan hay-adda garsoorku ay hindisaysaa in shaqaalaheeda oo dhan ay hoos keento hay-adda garsoorka marka haddii uu maamulka shaqaalaha yahay hadduu garsooro yahay in maxkamadda la hoos keeno ayaa la hindisayay inaguna ka deegaan ahaan xeer nidaameed waxaan hindisnay oo maanta aan ka doodaynay tilmaamaya in lala soo wareegi kara shaqaalaha saboortiga oo maxkamadda guud la hoos keeni doono dabcan waana madasha ku habbooneed waana goorta ku habbooneed waana cidda ku habbooneed oo guddoomiyaasha gobollada ayaa ka jira taas ayaa dood badan laga soo jeediyey xuquuqaha shaqaalaha mustaqbalka sida u noqon doono shaqaalaha kale ee hay-adaheena dowladda oo shaqeeya waxay ku kala duwanaan doonaan xuquuqaha iyo waajibaadka ay ku kala duwanaan doonaan annaga shaqaalahan marka ay nala soo wareegaan hay-adda garsoorka laftirkeeda waajibaad dheeriyahoo fuulaya lacala haddii uu jiro waxyaabahaas oo dhan ayaan ka doodaynay gasha fiicanna dabcan waan ka helay insha allah markii ugu horreysay weeyaan inaan doodahan maanta qabanno laakiin markii ugu dambeysay noqon mayso laamaha kale amaba cidda kale ee khusayso ama baarlamaanka ha noqoto ama shacabka ha noqotee waan sii wadi doonaa haddii alla yidhaahdo gabagabadii shirweynahan ayaa waxaa soo gabagabeeyey guddoomiyaha maxkamadda guud ee dowladda deegaanka soomaalida mudane cali baaruud sheekh axmed iyo guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda guud mudane cabdikariin axmed maxamuud kuwaasoo kula daarmay guddoomiyayaasha maxkamadaha iyo garsoorkuba inay dardargeliyaan sarraynta sharciga islamarkaanaysa soo laaban dhaliilaha hadday soo bandhigeen maadaamaay bulshadu u baahan tahay adeeg cadaaladeed oo hufan si loo gaaro yoolasha jihada cusub ee maxkamadda guudna ay dhaqangeliyaan laba kulan baa soo keeni jiray mid wuxuu ahaa kulankii guud ee maxkamaddu ay qabanayeen bileniumka ahaa aynu uga faa'iidaysanay inaynu hello dhaliilaha jira u baahan in la saxo inaynu ku falanqeyno xeerkii shaqaalaha ee aan rabnay in maxkamadaha gaar loogu saaro iyo qiimeyntii waxqabadka sanadkan oo si qurux badan u soo jeediyeen guddoomiyaashu oo aad dareemaysa in khibrad wanaagsan laga helay sanadkii hore oo markii inoogu horreysay in qaabkan oo kale ay adeegsano waxaan rajeynaa sanada ka dambeeya haddii ilahay yidhahdana sidaas si ka wanaagsan inay wax noogu qabsoomi doonaan wax badan aynu ku baraarugnay dhaliilaha markaynu eegno runtii dhaliilo badan baa jira haddii aynaan ogaanin dhaliilaheennana oo aynaan ku qancin oo aynaan qirinna ma sixi karo dhaliilo badan baa jira sababtay u jiraan way kala duwan tahay laakiin dhaliilahaas jira waa kuwo saameyn ku leh cadaaladda laynaga sugayo iyo shaqada aan qabanayno waa kuwo saameyn ku leh magaca garsoorka oo haddii aynan dhaqso u qabanin dhammaan saameynaya hay-addii garsoorka oo dhan hal meel wixii ka dhaca wuxuu magaca qaadanayaa ah garsoor ama hay-addii garsoorka maxkamadii baa si noocaas ka jirtaa si tan marka taasee meesha uga baxdo garsoor guddoomiye walba waa inuu dib ugu noqdo inta uu maamulo
oo ogaado dhaliilaa sheegaya kuwo kaleba oo qarsoonba halka ay ka jireen la taabto cidda sababta u ahayn la taabto waxa keenaya inaynu ogaano ma aqoon darra keenaysa ma shakhsi xumaa keenaysa ma waxa keenaysa dhayalsi iyo waxaan la iska xisaaraynin in la soo saaro kadibna aynu tallaabada lagu saxaya qaadano markaan eegno maxkamadaheena waxa ugu daran waxa weeye faylku marka uu inoo soo galo inagu dacwadaynu qaadnaa ama ciqaab ha noqdaan ama madax ha noqdaan waxa laynoogu imanayana waxa weeye xal inaan samayno oo dawo laynaga helo oo dhib bannaanka lagu xallin kari waayey inagu aynu xallino madina hadday tahay dadku dhaqankii iyo nidaamkay ku soo noolaayeen ayaa lagu soo xallin kari waayey dawadii u dambeysay baa la soo doontay innaga ta laga raba waxa weeye dawadii inaan noqono ciqaab haddii ay tahayna waa xadgudub lagu xadgudbo sharcigii ummaddan u dhexeeyey halka la rabo in lagu toosiyo oo dib loogu soo celiyo qofkaas inuu sharcigii raaco ama normskii nidaamkii bulshada ku wada noolay dib ugu soo noqdo innaga weeye waxaan raacaynaana waa sharci maaha innagu waxaynu alifayno ama si aan u malayno inay saas ku habboon tahay halkay ka bilaabataa waxa weeye furista faylka dhibka ugu badan anigu dareemaya waxa weeye rajistarada aynu leenahay ma aha dad aqoontii loo baahnaa ee rajistara leh waa furaha maxkamadda laga soo galo rajistarku haddii aanu aqoontii loo baahnaa lahayn oo inta uu isagu garanaya ay tahay keliya fayl markii ciidu u keento noocu dano ha noqdo inuu furo kadibna uu yidhaha fayl baa soo galo garsoorka u gudbiyo waajibkana saaran inaga marka muxuu yahay maxkamad guud ahaan iyo gebigeemba waxayna saaran waxa weeye inaynu dadkaas soo saarno aqoon in la siiyo oo wax la baro oo waxay ka shaqaynayaan aynu baro inta taa laga gaadhanaya waxaa saaran mas-uuliyadda khaasatan inay sameeyaan nidaam ay kula socon karaan registerarku faylashan uu furayaa sidii saxda ahayd ma yihiin mu ka leexsan yahay maxay ku suurtoobaysa marka in guddoomiye walba oo ku xisaabtamo registerarka bal in gacan la siiyo ama cid u assign garan la shaqaysa ama adiguba gacanta ku hay yaanay noqonin halkii albaabkii u horreeyay laga soo gelayay inay noqdo meesha ay wax ka khaldamayaan haddii albaabka u horreeya wax naga khaldamaan geed socodka gudaha noo soo galo sida loo saxaa way adag tahay waxaanay noqonaysaa maxkamadda u dambaysa inay soo celiso waa arrimihii hadda laga hadlayey 10 sano 12 sano 20 sano sababta u soconaya waa maxal baan samaynaa markaa haddii 10 sano fayl ku socdo xal maynaan keenin culays iyo dhib baa la keenay maxkamadda u dambaysa markuu tegay federaalka in soo noqonaya loo dhanay kow ha laga soo bilaabo dacwaddii baa la dhexlaya dhexlayaal baa soo galaya inta ka tegaan dadkii hore arrimahaas ay meesha uga baxaan waa in albaabka aynu ku hor istaagno oo waxa aan furayno aan ogaano sharciga muwaafaqsan yahay mise muwaafaqsan nidaam loo soo qortaa jira dacwaddu hadday tahay ciqaab iyo hadday madani tahayba ma waafaqsan yihiin registerarka aan ognahay inaanu aqoontaas lahayn guddoonku waa inuu ka caawiyo ama isagu shakhsi ahaan uga caawiyo ama cid kale u xilsaaro oo aqoontaa leh haddii aynan garanayn maanta faylkan wuxuu ahaa in arrinta waxaa laga soo qorto berri markii la yimid ayaa wixii aanay qabsoomin kadibna taariikh keliya lagu qoro la yidhaha haddana maalin heblaaya loo mudeeyey oo aanay dhexdaa ku jirin sababta keentay dhaliishaas innaga ayaa leh waa waxyaabahan baahnayn dib ugu noqono guddoomiye ahaan iyo garsoorkiiba arrintaas in dib loo eego ayay saaran tahay guddoomiyaashu waa inay arrintaas kula xisaabtamaan garsoorayaashooda wax yar oo aan sii badnayn ayaan anigu aan ku dardaarin gaar ahaan dhanka ciqaabta gobollada maxkamadda guud laftirkeeda fadhiyada racfaanka waanu ku aragnay mase badna laakiin degmooyinka iyo gobolladaba dhaliilaha ka jiraya waxa weeye marka ruuxa la soo eedeeyo innaga ka maxkamad ahaan kaalinta inala jirta in dembigii lagu helo oo cadaymihii xeer ilaalinta la raaco dan xukunkiisii uu helo iyo in lagu waayo oo cadaymaha uu isagu wato ama istifaaca uu isagu wato ay ka awood bataan kuwa xeer ilaalinta labada midoo weeye laakiin dhaliilaha qaar noo soo baxaya waxa weeye ruuxa dembigana waa lagu helaa qodobka lagu eedeeyey cadadka uu dhigaya in lagu ganaaxana
mid ka hooseeya ayaa la saaraa haddaan saaganayn anigu marka waa laga yaabaa in adiga khibrad badan tihiin ama adiga taqaanaan haddaan saaganayn anigu fikirka aan qaba waxa weeye ruuxa qodobka lagu soo eedeeyo ilaa xaashida eedda ay soo bedeshaan xeer ilaalintu oy dib u habeyn ku samaystaan oo qodobkii soo bedelaan mooyaane qodobka lagu soo eedeeyo halka uu ka bilaabayo ciqaabta ilaa halka ugu sarreysa inta u dhaxaysa ayay inaga kaalinteenu ka maxkamad ahaan iyo ka garsoor ahaanba ay tahay inagoo weliba isticmaalayna xeerka xadaynta marka waan aragnay go'aamo qodobku halka uu ka bilaabayo ka hooseeya yaanay badnaan laakiin way jiraan arrintaas maxkamadaheenu yaanay inagu soo noqon haddii dee fikirkayaga fikir ka wanaagsan oo maxkamadu awood buu u leeyahay inuu hoos maro aad leedihiinna waana qancin kartaan xagga sharciga inagoo eegayna waa kow ta kale waxaan aragnay ruuxa dembiga lagu soo eedeeyo qodobka lagu soo eedeynayaay isagoon dhigaynin in ganaaxa loo raacin karo xadhiga in go'aamada qaar loo raaciyo oo la yidhaahdo intaasoo xadhiga ama intaasoo ganaaxa dan ereyga ah intaasoo ganaaxa qodobkan lagu soo eedeeyay waa inuu lahaado ruuxa haddii uuna lahayn awood garsooruhu oo ma laha inuu ganaax meel kale ka keeno ilaan qodobka weli lama bedelin marka qodobadaas waa muhiim waxayna tusinaysaa in inagu dee marmarka qaar waa laga yaabaa xubin iska isticmaala ama awooddiisa isagoo gaarkaa iska isticmaala laakiin ka maxkamad ahaan iyo ka garsoor ahaan awoodda aan leenahay way xadidan tahay awoodda aan leenahay qodobka ina hor yaalla iyo xaashida eeda iyo caddaymaha dhinacyadu ay soo dhawaysanayaan inaan ka go'aan qaadana weeye dhaliilaha waxaan u malaynayaa inaan laga dhawaajin hadda kadib inay soo noqdaan ma rajaynayno kolley qodobada inta muhiimka gudoomiyahan dayn doonaa oo inoo soo jeedin doonaa hal qodob oo muhiima oo aan laga hadlo xagga madaniga ahabaa jirtay halkaa qodobna wuxuu ahaa inta badan waxaa jirta gaar ahaan kiisaska madaniga xujadaha amaba caddaymaha maamul magaalooyinka iyo dowladaha hoose ay bixiyaan waxaa la amraa dowladda hoose ama maamulka magaalada waxaa la amraa soo caddeeya xujadaasi inay idinka baxday oo ay sharci tahay waa su-aal fiican waa la weydiin karaa maamulka magaalada ama dowladda hoose wuxuu soo qori caddayn ah xujadaasi xusuus dhowrkayaga way ku jirtaa waa sharci waa sax laakiin hantida la isku haysta ama dhulka la isku haysta xujadaasi ma khusaysaa mise ma khusaysa la isma weydiiyo haddii hantida la isku haysta ay ku taalla xaafadda 11aad xujada laakiin ay ka soo baxday xaafad ay xujadu tilmaamayso hanti ku taalla xaafadda 20aad oo kale laakiin diwaankii dowladda hoose ay ku jirto dowladda hoose kuma oranayso diiwaankayaga way ku jirtaa laakiin dhulka la sheegaysa kuma oranayso amarada marka inagu aan bixinayno waa inay israacsanaadaan oo ay ahaadaan xujadana sharci ma tahay oo xafiiskiina ma ka baxday dhulka halkaa iyo halkaa iyo halkaa ku yaalla soonkaa ku yaalla cabiradaa leh dadkaas isku haystaan ma qaabilsan tahay mise ma qaabilsana dan jawaab dhammaystiran baan ka helaynaa marka maamulkii magaalada amaba dowladihii hoose oo aan ku go'aan gaari karno laakiin yaynaan odhanayno keliya diiwaankiina ma ku jirtaa mise kuma jirto xujado badan oo diiwaankooda ku jiran maxkamadeena aan dan ka lahayn baa jira oo aynaan uba baahnayn haddii diiwaankeena ku jiraan laynoo soo caddeeyana waxba inoo soo kordhinay inagu go'aanka aan gaadhayno dabcan haddayna khusaynin hantida ina hor taalla ee muranku uu ka taagan yahay marka labada qodob baan iyaan anigu ku dadaali lahaa arrinta saddexaad ee muhiimkan aanu idinku daraya waxa weeye madaniga iyo ciqaabta iyo fulintaba sanadkan iyo sanadkii hore markii aan bilownay inaan qiimeynta habkan ka dhigano inaguma ayna jirin laakiin sanadka dambe insha Allah waan ku darsan doonaa haddii aan wada joogno ku xisaabtama in maxkamadda degmada ama maamulka magaalada ama gobolka iyo heer deegaanba kiisasku marka ay ka bilaabmaan inaad cayimataan kiisku muddada uu qaadan karo laga bilaabo maalinta uu soo galay maxkamadda ilaa maalinka uu go'aan helayo muddo intaa lag buu qaadan karaa kiiskaas dan aan ugu xisaabtano muddadii buu idinka tabamaray dan wuu idinku dheeraaday sababtoo ah awood uma lihin inaan kiiska ilaa inta aan inagu aan waqti ka helayno ama ilaa inta aynu go'aanka gaadhino inaan ballama siino uun marka muddooyinka uu ku qaadan karo ciqaabto maalinka uu soo galo ilaa maanta 2 bilood ama 3 bilood ama maalin hadduu qoraal yahay waa laga yaabaa inuu 2 maalmood ama maalin go'aan ku helaba hadba nature-ka kiiska inagoo eegayna madani iyo ciqaaba inaan ku xisaabtano xilliga ugu dhow ee kiiska aynu go'aan siin karno waad mahadsantihiin